gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan Axmed Faal ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe kadib safar uu ugu maqnaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaana garoonka diyaaradaha Jowhar ku soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo degmada Jowhar iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweyn kadib Cabdinaasir Maxamed Cali oo ah afhayeenka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka warbixiyay booqashadii gudoomiyaha gobolka uu ku tagay koonfur Afrika iyo magaalada Muqdisho. Raxiim aad u mahadsantihiin dhamaan baxda saxaafadda waxaan maanta soo dhaweynay oo safar magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda goboleedka Hirshabeelle dib ugu soo laabtay gudoomiyihii maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meere Makaraan sida la wada socoteenba maalmahan gudoomiyaha wuxuu safar ugu maqnaa caasimadda dalka Muqdisho iyo qaybo kamid ah dalalka caalamka oo invitation iyo martiqaadyo kala duwan oo ka helay gudoomiyaha ayaa intuu dalka ka maqnaa wuxuu la soo kulmay hay'ado kala duwan oo horay runtii ugu balansanayeen inay ka shaqeeyaan horumarinta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha mashaariicda beeraha gudoomiyihii ayaa wuxuu balanqaadyo wanaagsan ka soo helay oo fayskii dalka dibadiisa gaar ahaan dalka South Africa oo ku soo qaatayna waxa la rajaynayaa in phase 2giisii ay ka dhacaan magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha ayaa markuu magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtayna wuxuu kulamo kala duwan la sii qaatay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo bini'aadanimada intii waxaan rajaynaynaa in wax badan ka soo baxaan kulamadaasna laga miro dhaliyo oo faa'iidooyinkooda iyo jawaabaha ka imaan doonaba bahda saxaafadda aan u soo bandhigi doono insha Allah gudoomiyihii maanta magaalada Jowhar ayaa waxa ku soo dhaweeyay qaar ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe uu hogaaminayo kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo saraakiisha ciidanka bahda saxaafadda iyo dhamaan dhalinyaradii iyo haweenka gobolka waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha inta uu joogo ayaa wuxuu la hadli doonaa saxaafadda maanta waxaan isugu yeernay oo aan isugu yeernayna inaad gudoomiyaha soo dhaweyntiisii inta aan ka niraano insha Allah inta gudoomiyaha joogana saxaafadda uu la hadli doonaa howlo kala duwan iyo mashaariic kala duwan iyo shaqooyin badan ayaa noo horyaalo waxaan rajaynayaa insha Allah inay guul ka wada dhamaadaan xasiloonin aan ku wada noolaan insha Allah aad ma santi Saadax Khalisman dalka News TV Jowhar.